wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa baarlamaanka Soomaaliya horgeeyay miisaaniyadda 2018 ee xukuumadda Soomaaliya iyo dib u eegista miisaaniyaddii 2017 sida warkan uu ku eegayo Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali. kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo ay maanta soo xaadireen 151 xildhibaan waxaa looga hadlayay laba ajando oo kala ahaa soo bandhigida wasiirka maaliyadda aqoontada miisaaniyadda 2018 iyo dib u eegista xeerka ku noqoshada miisaaniyadda 2017 waxaana labadaasi qodob oo mid kamid ah u dhaliyay buuq aad u fara badan oo keenay in saxaafadda banaanka loo saaro halka ugu horeyntii wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu ka hadlay qoondada miisaaniyadda 2018 dakhliga gudaha inaga soo galaya oo ay tahay inaan kaga kaaftoono wax dibadda ka yimaada oo budgetka lagu kabo wuxuu kordhay 18% waxaan u maleynayaa waa koboc wanaagsan weeyaan sanadka soo socda in inta ka sii fiicnaato ayaan ku tala jiraa waxaan doonayaa dhowr arrimood oo ka soo baxaya budgetka hal muceediyada aan u bixiyay inaan idin la wadaago ka koobaad waxa weeye sanadkan 2017 18% ayaa koror yimi dakhliga gudaha ka soo baxa arinta labaad dakhliga gudaha ka soo baxaya iyo kabida waxa marka la isku daro waxay ka fargareynayaan ama ay daboolayaan 7% dakhligeena gudaha ka soo baxa macnuhu waxa weeye markaan eegno kharashka joogtada ah ee loo baahan yahay in lagu rangareeyo wadankan taasi kadib xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood adag yeeshay waxaana saxaafadda loo saaray banaanka xildhibaan Dr. Cilmi ayaa arintaas wax ka weydiiyay doodda waxay ku saabsaneyd iyo qaabka arrimahaas ay u dhaceen sidaad la socotaanba waxa jira sharciga cashuuraha oo hore oo qadiim ah oo 62 iyo 5 iyo 7 ahaa marka meelahan kala cadeyn bay kamid tahay gunooyinka in cashuur laga qaado iyo inaan cashuur laga qaadin مثلا qofka muxuu ahaay shaqaalaha ah markuu mishaarkiisa qaato hadii xil loo dhiibo gunaha xilka uu ku qaadanayo cashuur lagama qaado mas'uuliyiinta muxuu ahaay sarsare ma lahayn cashuur ma lahayn baarlamaanku mudooyinka ugu dambeeyay cashuur buu qaaday ayuu bixinayay laakiin ahayd wareegto ku timiday muxuu wasiirkii markaa joogay